hay-adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka ayaa la wareegtay deeqo raashin oo ay soo gaarsiisay dawladda Imaaraadka Carabtu. deeqdaasi oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay soo food saareen abaaraha ka jira Soomaaliland. waxaana la wareegidda deeqdan goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah guddida abaaraha ee heer qaran. gudoomiye ku-xigeenka hay-adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka mudane Faysal Jaamac Hawte oo deeqdaasi si rasmi ah ula wareegay dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ka waramay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta. waanu mahadcelinaynaa dawladda Imaaraadka Carabta waxay noo keentay mucaawimo iyo raashin kala duwan oo ay tamiska raashin ka kooban yahay oo dhan ka kooban markii koowaadna ma aha oo ay noo soo gurmato duufaantii sagar markii ay dhacday waxay nagu caawiyeen oo ugu weynaa diyaaradii ay nagu gurmanay duufaantii sagar iyo xeebaha Soomaaliland dawladda Imaaraadka ay noo keentay waxa kale oo ku xigtay diyaarado badan oo raashin oo ay noo keeneen maantana waa kuwa halkan maraya taasi waxay ka turjumaysaa xiriirka inaga dhaxeeya dawladda Imaaraadka Carabta ee iskaashiga ku dhisan ee ganacsigu weheliyo ee diblomaasiyadda iyo siyaasaddu weheliso mar koowaad iyo mar labaad waxaynu mahadcelinaynaa dawladda Imaaraadka Carabta. agaasimaha waaxda gargaarka iyo gurmadka ee hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka mudane Mustafa Cabdullaahi Xaashi iyo Saciid Cabdi Gaboobe oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay deeqdan ay soo gaarsiiyeen dawladda Imaaraadka Carabtu. waan soo dhaweynaynaa runtii مساعدات بين الإمارات والأوكرانتي. القائد الفذ كما ترون تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وإسلامية ترسل وفي العالم ترسل إغاثة عاجلة كما ترون إغاثة عاجلة مواطنة متنوعة وفيها مياه. ماريا هيدا دولست يا مدارها جمهورية Soomaaliland mudane Cumar Sayid Maxamed ayaa isna dhankiisa ka hadlay deeqdan la soo gaarsiiyay dawladda Soomaaliland ay ugu deeqeen dawladaha Imaaraadka Carabtu. dhinaciisa isna waxa ka hadlay oo ka waramay deeqdan ay soo gaarsiiyeen Soomaaliland safiirka dawladda Imaaraadka u fadhiya Soomaaliland Cabdalla Naqdi waxaana uu sheegay in deeqdan ay tahay mid hordhac balse ay sii wadi doonaan deeqaha kala duwan ay soo gaarsiinayaan Soomaaliland. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland kana mid ah xubnaha guddida abaaraha ee heer qaran mudane Xasan Maxamed Gaafadhi ayaa sheegay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay tahay dawladdii ugu horeysay ee ka soo jawaabta baaqi xukuumadda Soomaaliland dirtay ee ku saabsanaa gurmadka taakulaynta dadka ay soo food saareen abaaraha ka jira guud ahaan dalka Soomaaliland. aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan maanta anigoo ka wakiil ah guddidii abaaraha taakulaynta abaaraha aan kaga gudoomay Cabdalla ah wakiilka Imaaraadka raashinka kala duwan ayaan kaga gudoomay jazakallahu khayran aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa ka gudoonay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.